horta dalqadaha iyo furitaanku wax lagu ciyaaro maaha wala tattakhiduu aayaatillahi huzwan buu ilaahay yidhi ilaahay aayadihiisa iyo axkaamta diintiisa jees ha ka dhiganina wax lagu ciyaaro maaha ninka markuu mas-uuliyadda guriga waxa loogu dhiibay dalqadaha waa inuu degan yahay waa inuu dulqaad leeyahay waa inuu kafiirsi leeyahay waa inuusan degdegin haddii uu furitaan ku dhawaaqo miyirkiisuna maankiisuna markaa joogo furitaanku waa dhacaya laakiin maxaa dhacaya hadduu saddex yidhaahdo ama laba yidhaahdo saddexdu ma israacaan labaduse ma israacaan mise markiiba hal unbaa dhacaysa masaladaa wey masalada culimmadu ay ku kala aragti beddelan yihiin siday u badan yihiin waxay qabaan saddex haddii la yidhahdo saddexdu way israacayaan laba haddii la yidhahdana labadu way wada tegayaan saasay u badan yihiin culimmada qaar ka midana waxay qabaan meehee saddex hadduu yidhaahdo hal unbaa dhacaysa laba hadduu yidhahdana mid unbaa dhacaysa ta kale waxay dhacaysaa uun markuu taa ka soo noqdo hadduu furitaan kala sameeyey ta kala dhici kartaa ta saddexaadna mar madax bannaan bay dhici karaysa dalqaduhu isma raacaan culimmada qaar baa qaba qaarna waxay qabaan way israacaan oo masale khilaafkeedu caan yahay sidaas daraaddeed khalad weeye ninku inuu dalqadaha israaciyo dalaaqa iyo furitaanku labu u qaybsama midna sunnadu waafaqsan yahay midna wuu khilaafsan yahay bidci baa la dhahaa dalaaqa bidciga waxaa ka mid ah ee shareecada khilaafsan haweenayda iyadoo caado qabta in la furo waa khalad ayada oo daahirsatay laakiin daahirsiga ay daahirsatay loogu galmoodo ninkeedii is arkeen in lagu furana waa khalad furitaanka saxda ah waa in ayadoo daahir ah oo intay isdaahirisay aan la arkin oon loo galmoonin in la furo waaye markaa ciddadaa u gaabanaysa waxaa ka mid a dalqadaha markuu ninku naagta xaaska furayo waa inuusan saddexna dhihin labana dhihin hal dalqada ku furo lacalla allaha yuxdiu bacda dalika amraa jaanis baa lagu siiyey mar fur haddaad sidaa ku dayso way furmi ood ciddada kaga baxdo haddii aad isbeddesho oo xaalad soo gorodhana waxaa kugu filan waan soo ceshaday meel fog ka raadin mayse mar labaad baa timid haddana dalqad mar saddexaad dalqad saddexda dalqadood waxaa loo bixiyey calashaanisi in jaanis la siiyo guriga iyo reerka sidaas daraaddeed dalqadaha in la israaciyo waa khalad waxay khilaafsan tahay hadyigii nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam ma israacayaan hadduu ninku rido laba iyo saddex uu dhaho oo masale khilaafiya weeye waxaase xoog badan inta kolley aan garanayo madhabka dhahaya dalqaduhu isma raacaan sidaas daraaddeed hadduu saddex yidhaahdo hal dalqad baa laga soo qaadaya hadduu laba yidhaahdo hal dalqad baa laga soo qaadaya markiiba hal dalqad baa dhacaysa wallahu aclam furitaanka waa qur-aanku leeyahay aطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan alaaq waa laba jeer baa ilaahay yidhi yani you have two chances iminkaad furtay muddadaa fakera baa la yidhi dhowrkaa biloodee ayse sugaysaan muddadaasi ise suga baa la yidhi waktiga waa iga dhammaaday iclaan 5 daqiiqa baan haystaa 5 daqiiqa isdhegaysano laba goor waxa weeyaan gabadha haddaad hadda furto jaanis baad haysataa haddii jaaniska ay isu hungurootaan waad soo rajactu khaatiyuun baad u yeelaysa haddii jaaniskii uu lumo oo aad kala tagtaan meher jadiida ayaa isku mehersanaysaa mar labaad kaa hore iska tajribuha mar labaad hadduu dhaco aad furto waa laga yaabaa inaad isku soo noqon kartaan mar saddexaad haddaad furtaan baa la yidhi macnaheedu waxa weeyaan furitaankan waa in xad loo yeela labadiinani laba wada noolaan kara ma tiidine diinta waxbaa ku cayaarana mid walba qof aad mutajaanis u taad la noolaan karto nolosha ka raadi weeyaan macnaheedu marka waxa la yidhi labadaasi dib isu guursan maayaan ilaa nin kale iyo nolol kale iyo wax kale la soo arko sheekada Soomaalidu ay tiraadeen muxallalkiyo waxna waxaan jirin mashkiladeenu waxa hadaba ka tahay ninku wuxuu mooday inaanu waxba furmaynin gabadhan hadaanu dhowr dalqaan furay oo dhan
gabadha lafteedu waxay moodaysaa inaan la furinba haddaan dhowrkan la sheegin saddex baan wax furay macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyaan gabadhan waan furay na labadii jaanis ee dambe aynu isku lahayna ilaahay yidhi way isu bannaantiina labadaana imikaan ka sii insixaabo yara waan ka baxay ogsolow maxaad labadaa uga baxaysaa ku falaysaa gabadhii furtayo way furmaysaa hadhow nolosha haddaad rabto inaa isu muuctaana dawayd isqabi haddii kalena dawayd iska kala tegiye maxaa keenay inaad tidhaahdo labada jaanis ee dambe ee aan haystana imikaan sii raaciye saddex baa tahay tani waa caynkaa macnaheedu waxaan leenahay saddex wax lagu furaa ma jiraan ee qofku waa inuu ku furaa gabadha dalqad taas baa sunnada ah saddex baan wax ku furay waa dembi ma dhacayso mise ma dhacayso waa masale kale laakiin waxay leenahay aad bay dembi u tahay gabadhani waxay leedahay ninkayga aan kala tagnay wuxuu ugu furay 2 dalaaqood reerka iyagii baa soo dhaxgalo in isku kaayi celiyaan bay rabeen ninkii markii lala hadlay halkii rajactu laga filayay yiri tii saddexaadna waa ugu daray tii saddexaadna way ku furanta muddo kadib ayuu leeyahay oo dib uga shaqaalaayo reerkii ilmihii waan rabaa ayuu leeyahay bay gabadhu leedahay ciddadiina way dhammaatay maxaa xal ah masaladani waa 2 qaybood oo marba masalatu talaaq الثلاث marna waa ciddada dhammaatay masalatu talaaq الثلاث saddex dalqadood ma israacaan weeye masalada nuxurkeedoo hal ciddad ma isugu tagaan masalo khilaaf badan ka jira weeye muddo dheerna soo jiitamay marar badan saan sheegnay aniga asaxul qowleyn ee naska u dhow hal dalqadun baa dhacaysa markaas 2 dalqadood isku ciddo ma galaan hadduu 2 yiri iyo hadduu 3 yiri iyo hadduu 1 yiri oo mid labaad ka daba tuuray oo mid saxa ka daba geeyo hal dalqadun bay ciddadaa noqon sidaa haddii la yidhaahdo xilligaas dalqadda dambe uu ka daba tuuray meel lama laha tii hore hadduu 2 yirina halun bay noqon kadib ciddadii hadday dhammaatay guur iyo nikaax cusub baa u furan hal dalqadii way dhacday dee 2 igu furaydu hadday isku mar ahaydna halkaa unbaa dhacday hadday mid hore oo jirtay ay ku darayso oo isku noqdeen mid labaadna ay taa noqotana hal dalqadoo hadhay isku qabayaan wixii baaqi u ahaa bay isku qabayaan laakiin nikaax cusub oo markhaati iyo meher leh bay samayn karaan